واتهاي داوديال هاتنا waxaan sameynaa raayo ururin ku saabsan in ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo waliba madaxweynaha Soomaaliya ay soo gaarayaan magaalada Hargeysa toddobaadkan hadaba waxaan ka wareysanay shacbi weynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa sida ay u arkaan fikirkooda imaatinka farmaajo ee magaalada Hargeysa magacaygu waa Cabdirasaaq Cali Axmed sidoo aragtay imaatinka farmaajo ee magaalada Hargeysa markii dhawaan kulmeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi waa khayr weeye soo kordhay laba dawladood jaaro Soomaaliyeed oo labadood madaxweyne sarkeen taanu dadku waxay ku hadlayaan garan maayo diyaarad baan la dhacayo barbaanu qaxnay waxa macna male dadku way istiraan way heshiiyeen sharmalkii bariya galbeed loo kala qaybiyay baa midoobay adduunyada horumar bay ka fikiraysaa waxay ka fikiraysaa warshado dekad waxaanu leenahay bad balaaran baynu leenahay dekad malihin kalluunkeenii baa la iska gurtaa in dalka labada dalba la dhiso oo labada madaxweyne sarkaan oo ay Hargeysa isugu yimaadaan oo ay xamar isugu tagaan oo iskaashadaan oo ay argagixisada iska kaashadaan oo ay iska kaashadaan jahliga xagaana jahli baa yaal halkana jahli baa yaala oo dadka wax la baro oo ay istictiraafaan oo laba nin oo Soomaaliyeed oo isberber yaala ay noqdaan anigu ninka diidan wuxuu jeeda garan maayadee waxaad aaminsantahay Soomaaliya marka la isku noqdo adigu fikirka miya Soomaaliya meel la kala qaban mayso waa Soomaaliya laakiin laba madaxweyne oo midoobay 60kii maantana waxoodii kala gurtay oo xuduudka Soomaaliland iyo Soomaaliya intay isugu tagaan ku wada qadeeya iyadoo aan xabashiina dhex joogin cid kale dhex joogin oo soo kala noqda oo kaana xabal lagu soo dhaweeyo kana Hargeysa lagu soo dhaweeyo maxaa ceeb ku jira sidoo aragtaa fikirkaaga ah in madaxweyne farmaajo uu 29 sano kadib maanta magaalada Hargeysa yimaado horta walaal laba kala duwan horta farmaajo inuu Hargeysa yimaado isagoo oo sita magaca madaxweynaha Soomaaliya marna suuroobi mayso isagoo calankiisa sita oo Hargeysa ka soo dego laakiin waxaan soo dhaweynaa isagoo ah matalaya wafdiga Abiy Ahmed la socda isagoo ah oo aan sidan taytalka madaxweynimo laakiin kamid noqonaya wafdiga la socda Abiy Ahmed calanka Itoobiya lagu soo dhaweeyo Abiy Ahmed balse calanka Soomaaliya aan la surin madaarka iyo goobaha Hargeysa ka midayda Soomaaliland Itoobiya wada gashay ka Soomaaliya wadiidan galnay waayo Itoobiya Soomaaliya waxaan hayn mid la ka goonay ونحاسديا هدو يسوي أنت إنه قلادو هل كوالي تاكريا ما أنت هدو إنه سوماليلاند وضل شرا وان اعتراف سنة هاي وأنا أقول هاي نقاضو هل كسلقة تاجي وأنا لسود وينيه يسرو شخص يا هرت يسوي كل جيم ما كريو صوبته فرماتشو سوى فرماتشو سوى كيشدي أو سوى بريء إنه يمادو إنه سوى حاجته أبي أحمد هدو كرتيا أود كله هنا هرجسي يمادو أو معاملة سجى يملها لكن أود الآن يو أقونهان ayuu soo wakiishay inuu soo kaxaysto Abiy Ahmed marka isagoo waxaan ogolahay calanka Soomaaliya aan sidan taytalka madaxweynenimada aan sidan inuu Hargeysa imaado waan ogolahay wafdiga Abiy Ahmedna uu ka mid noqdo wafdigiisa ayaan ogolahay adiga horta assalaamu calaykum anigoo Saciid Xuseen Xaaji hilaal walaal magaca lagu naanaysaa hilaal walaal labada magac baan leeyahay waxaan ka hadlayaa ra'yigayga ka dhiibto qof walba ra'yi buu leeyahay imaatinka madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa weeye horta anaga Soomaaliland ahaan magac weyn iyo sharaf ay noqotay anagoo Soomaaliland calankayga haysana dawladnimadii ku fadhina kuraasida in badan baan jeclay inaan isu wada nimaadno sida caalamku inuu arko way ka sii wanaagsantahay waan jeclahay inaan soo dhaweyno waliba laba jamhuuriyadood baan ahay anaga Soomaaliya oo wala ah oo wax isku darsaday isuna gal waayo kala go'ay oo gooni kala fadhiya sideen baan anagu jamhuuriyadii u nahay Soomaaliland aanu nahay waxa weeye inuu noo yimaado wax weyn buu ku soo kordhinaysaa waan aaminsanahay caalamkana in la arko jamhuuriyadii Soomaaliland iyo Soomaaliya oo wanaagna Allah ku dhameeyaan kula jeedo insha Allah taala adeer magacaaga maxamed nuur baa maxamed nuur sidoo aragtaa imaatinka farmaajo ee magaalada Hargeysa way fiican oo walaashintay inuu yimaado wala wada hadlo way fiican oo laga xaajoodo daarimahan dhex yaala laga xaajoodo way fiican way wada hadlaan laakiin waxba naga dhaxeeyaan waxay naga dhaxeeyaan dama jiro dhawaan way wada laakiin wixii naga dhaxeeya wax jire naga dhaxeeya arrimaha amba adduunyaha noqoto amba xoolaha noqoto amba deehaan noqoto waxyaabo kale in siyaasadana hadii beedmaayo la isku soo dhawaado laba dalna la kala ahaado hadii beedna la iscafo ayay way fiican tahay
ها oo waxaan taban yaa ilaa hadda ma aqoonsanay labada yaa daana aqoonsanay inay jirtaa ayaga wax kula anu wax kuma lihi ayaga dhibaato haysataa aniga dhibaato ma haysato waa ka baxay anu dhibaatadii laakiin ayaga dhibaato haysataa waaba la gargaari lahayn waxba aan la qaban lahayn wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo dhaw walaal magacayga waxa la Salmaan Axmed Salmaan Barduud fal la yiraahdo kullu warbaahinta kuma xusbi inta badan fikirkay rayeen ka dhibtaa warbaahinta marka fikirkaaga ah in madaxweyne Farmaajo dhawaantii kulmeen madaxweyne Muuse Biixi kadibna uu magaalada Hargeysa yimaado isaga iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Seedo aragta wallahi runtii horta waxa weeye imaatanka shuruudo badan baa ka horeeya marka waxa weeye inagoo horta waxaan xukuumadda Soomaaliland meenahay Farmaajo maalin dhow waxaan maqlaayay inuu yiri raaligelin baa ka bixinaya wixii gobolada waqooyi ku dhacay horta inagu maanta waxa weeye Soomaaliland goboladii waqooyi way ka tagtay waa Soomaaliland baa la yiraahdaa marka hadalkii Farmaajo waxaan u arkay xaqiraad iyo waxaan u arkay runtii iyo ku dheeleen iyo ku tirtirsi waayo waxa weeye marka hore raaligelin waxa laga bixin karaa waxa weeye waa laba qof oo iscambaareeyay baa la oran karaa hebel raaligelin baa siinaya waxa weeye magaalada Hargeysa ilaa magaalada Berbera ilaa Burco ummadii deganayd iyo ummadii iyo hantidoodiiba horta waa la isku gubo oo la isku ololiyay oo meesha horta dhibaato badan baa dhacday dadkii xasuuqan geysteen runtiina waa adeerkii weeyaan Morgalna Puntland buu joogaa waa qoyskiisa marka waxa weeye horta wax raaligelin laga bixin karana maaha oo ummado dhan baa la halaagay Farmaajo imaatankiisa Muuse Biixina horta in ra'iisul wasaaraha Itoobiya xitaa maamuus xitaa si fiican muslimin qolkiisii xafiiskiisii labadaba dusha kaga xidhiiri ku wada hadla Muuse Biixina muu sheegay wixii lagu wada hadlay marka kullu way iska noqon kartaa imaantan marka Farmaajo horta imaatankiisu muxuu ku iman karaaba waa dadkii wadankan baabiyay Soomaaliland ma aqoonsana wuxuu maalintii dhaweyta dheeleelkii wuxuu ku hadlayna waa la arkay marka waxa weeye hadii ay sidaas dhacdo shacbiga reer Soomaaliland baa u taala waayo maanta waxa weeye xanuunkii iyo dhibaatadii iyo xasuuqii dadkan loo geystay anu waxa laga yeelan dadkan ka yara weynahay baa laga yaabaa oo inuu waqtiga goob joog baan ahaaba anu waqtiga waayo 15 jir baan ahaa waayo dawladda waa miig 17 miig 19 iyo miigi iyo dawladii South Africa laga soo kireystay gantaaladii sawaariikhda ride anu waxaan goob joog u ahaa in markii gantaalaha ka dhacay BM-ka waa 42 ka dhuumood inta halka la soo taxay dabeetana lagu duqeynayay waxa goob joog u ahaa anu maalinta qiyaamaha in muxuu ahaayay dadkii markii gurigii dawladdan ugu duqeysay gantaaladii xagga nalaga afuufay ciidamadii taangiyada si aad barana xagga noo taagan yihiin 45 ciyaal iyo dumar iyo waliba gabadh umura markii anagu nalaga soo saaray goobtii ololeysa ayaa meedkii iyo dushii nalaga soo saaray dhagaweyne maanta goob joog waa dhagaweyne ciidankiisa baa soo gaaray goobta waayo dhagaweyne ilmeynaya meeshii naga soo saaray marka waxa weeye xasuuq xun baa ka dhacay anigu maalinta waliba waan ku dhaawacay yar fudud baa ka soo dhacay annagoo khalqalsan bay baabuurna saarin baabuurada aslamta iyo shiinaha nalkii waxa weeye meesha horta waxa weeye tiya waxaas dhaceen inuu Farmaajona dheeleel yiraahdo maanta raaligelin baan ka bixinaya yaadar laba qof oo iscamaareeyay baa raaligelin ma ka bixinaya waa imaanta boqolaal kun baa la xasuuqo dhulka hoostiisa la meegri marka Farmaajona ma iman karo Muuse Biixina kaligii ma go'aansan karo ma oran karo muxuu ahaayay anigu kanuma hadli karo marka waxa weeye asxaabta qaranka u taala ummadda u taala Farmaajona halkan ma iman karo ra'iisul wasaaraha Itoobiya maanta waxba kama oga wixii halkan ka dhacay magacaaga cad socodalay wandhuwe fikirkaaga ah in madaxweyne Farmaajo kadib kulankii labada madaxweyne ee Soomaaliland iyo Soomaaliya magaalada Hargeysa wiigan soo gaarayo sidoo aragta wallahi horta wax khaldan ma arkaa intuu shalayna xasuuqo nalaayay maanta ku yidhi ku imanaya waxaan arkaa digashan arkaan markaa ma soo dhaweynayo khaldan ma arkaa magacaaga Mukhtaar Cabdi Yuusuf Mukhtaar maanta la sheegay madaxweyne Farmaajo inuu ku soo gaaray magaalada Hargeysa sidoo aragta bismillaahir rahmaanir rahiim horta waxaan arkaa laba nin oo la yiri waxa tir jirtay maama Soomaaliyeed ba tiraahda laba nin baa shir laga qayb galiyay dabadna waxa shirka yimaada laba nin dabadna way ka daaheen oo shirkiiba dib uga dhaceen markii shirkii dib uga dhaceen iyaba goor dambe yimaadeen waxa hebelo maxaad adigu ku maqnayd wuxuu yiri anigu shilin saayad ka soo dhigatay ayaaba iga lumay buuri shilinkii intaan raadinayay ayuu waqti uga dhacay buuri kii kale adiga maxaad adiguna ku absantay markaa wuxuu yiri shilinka laftigiisa ma kaga tagnaa buuri saanu uga dhiganisahay markaa waxaan arkaa
geedi loo noloshii dheerin seeto ku seeto dheeraysanayo ninka farmaajo ayuu man arkaa anigu imaadkan uu imanaya Hargeysa waxa rajaa kama qabo soo dhawayo magacayga hoodan ma hada cilmi odanay seedo aragtaa madaxweynaha la yiri wuxuu imanaya magaalada Hargeysa madaxweynaha Soomaaliya farmaajo kadib kulankiisa iyo madaxweynaha Soomaaliland dhexmaray seedo aragtaa in Hargeysa imaado farmaajo horta madaxweyne jiro oo la ogyahay ogsoon tahay tawo imanay waanu soo dhaweynaa laakiin arrimuhu la socdo kama yeelayna de laba dawladood baanu kala nahay annagoon isku filanahay ilaahayna uu jecel yahay waxaan isku darsanaynaa ma jirto haddii noo yimaado soo dhaweynayna aniga hanay reesaalin baa la yiraahdaa anay seedo aragtaa imaatinka madaxweyne farmaajo ee magaalada Hargeysa horta ma sha Allah marka koobaad waan soo dhaweynaa madaxweyne farmaajo laakiin anagu ma ogolin tootali Soomaaliya la isku daro ma ogolin ha magacayga walaal waa Khadar Jaamac Nuur Khadar seedo aragtaa waxa la sheegay in madaxweynaha Soomaaliya farmaajo kadib kulankii Muuse Biixi kulmeen uu soo gaaray magaalada Hargeysa maalmaha soo socda seedo aragtaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu Hargeysa yimaado aad iyo aad baan u taageersanayaa waana soo dhaweynayaa waliba waan u saxbatoobaya madaxweynaha inuu soo dhaweeyo Hargeysa in Soomaaliya marka isku darsamaa tamsiin la wada hadlo oo dhinac la isku wax la isku afkarto anigu ra'yi ahaan waxaan oran lahaa hadii aan madaxda ra'yi ku biirin lahaa midnimo hala magaranaysaa ra'yi ururada laga sameeyo Soomaaliland gudaheeda dadka dhankii ay ra'yi u bato hadii la isku raaco shacabku bataan ayaan Allah lagu biiro hadii ay midnimo maasanta ayaan la soo dhaweeyo seedo aragtaa imaatinka magaalada Hargeysa ee madaxweyne farmaajo waan soo dhaweynaa horta markaa ma sababtu imanaya markaa ma maxay dhawaan waxay saarkeen madaxweynaha Soomaaliland aad sabay ku kulmeen abiiba kulanka goobjoogka iminkana waxa la sheegay inuu abiy la socdo farmaajo arinta laga wada hadlayo kale waa ama waa in la israaco ama in la kala ixtiraafkii wina siiyo israac ma horta israac meesha ma jirtee laba kala dawladood ma noo Soomaaliland iyo Soomaaliya kala markaa waa isku imanayaan oo madaxweynaha Muuse Biixi iyo farmaajo iyagoo laba kala madaxweyne laba kala dawladood bay isku iman karaan laakiin israac ma jiro israac iyo waxaas ma jira haatan waxaan la kulmay Mustafa Shiine Mustafa soo dhaw wadawaa mahadsantahay Mustafa seedo aragtaa hadalkan la sheegay maanta magaalada Hargeysa in madaxweyne farmaajo soo gaarayo iyo Abiy Ahmed magaalada Hargeysa nimaashaha deewatiimka gudoomiyaha golaha guurtidu ka waramay oo uu sheegay in dawladda Soomaaliland dhowr jeer diiday inuu ninkaas yimaado qaasatan madaxweynuhu waana go'aanka waa ka sheegay hadii uu yimaado isaga la soo dhaweyn maayo Abiy baa la soo dhaweynaya mid kale waa inuu ku kalsoonaanaa madaxdeena qarankan waxa loo doortay siyaasadda arrimaha dibadda madax xigto ayaa loo doortay madaxdu markay gasho ayaanu xisaabinaynaa in waxay galeen dambi ahaa inuu sax ahaa marka waxaan aaminsanahay in lagu kalsoonaado madaxdeenu dooranay oo aan laga hor dhicin iyaga aad maasanta magacayga waxa la yiraahdaa Salmaan Jaamac Diiri Salmaan seedo aragtaa imaatinkan madaxweyne farmaajo ee magaalada Hargeysa walaader anigu markaan garanayo ninka la yiraahdo farmaajo haddii yiraahdo Hargeysa imanaya anigu waxaan u qabaa isagoo leh waxaan imanayaa gobol Soomaaliya ka tirsan baan tagaya marka anigu arrin aan qabo arrin aan madaxweynahayga ka filayo inuu arrintaa ku soo dhaweeyo waxa la yiraahdaa anigu madaxweyne Muuse Biixi baan u doortay wadankan inuu madaxweyne ka noqdo ومان دورن إنه فرماج كان نقضه فرماج هادو يسوع كإيمانية محل هذا وكرسية هي سومالان إن الجمهورية مدح بنانتها هاي أو ضد ولا له هو أي وطن حرية هاي ونكسر دويننا لكن يسوع هايستين ويجي قبل ذي وقوي أي ويسوس هاي شلش حكوها اللي ولها وحن أريدو أي ضدكوا هايستين وحال بحنسية أما ورجالين كبحي ما هاي وح أنا كفيل إنه Soomaaliland ka dhacdo marka anigu mana ku soo dhaweynayo maxal hada umana qabo ilaa haddana ma qabo inuu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi yeelay inuu farmaajo yimaado magaalada ama jamhuuriyadda Soomaaliland waa mahadsan magacaygu Cabdiqadar Xasan Dugsiye Cabdiqadar seedo aragtaa imaatinka farmaajo ee magaalada Hargeysa horta ka hor dhici mayno taasina kulay sida madaxweynuhu kulankii ay wada qaateen isaga farmaajo oo dhexdhexaadka ka ahaa Abiy Ahmed kulay qodobo dowra waa la sheegay oo ay ka kulmeen farmaajana noqotaankiisii raaligelintii dhibaatooyinkii dadka loo geystay waa ka raaligeliyay kulay taasina bari toolna sida la filayo madaxweynuhu waxa laga yaabaa inuu la kulmo labada golo isku dhafan oo khudbadii sanadlaha ahayd ka jeedinayo ka hor dhici mayno
ilaa madaxweynaha hadalkiisa aynu aragno taasuun baan leeyahay laakiin isma lihi kolley wuu iman doonaa farmaajo isma lihi taasina mid maaha macquula qaranka Soomaalilandna ku macquula كل فكر كان أمسنا هو تاس